wardegdega saaxiibayaal magaalada Hargeysa ee caasimada maamulka Somaliland waxaa saacado kadib ku wajahan garaad jaamac garaad cali oo ah mid kamida isimada dhaqanka ee markaasi reer waqooyi bari Soomaaliya waxaana la filayaa inuu ka daba tago xildhibaanad Fahimo Qooje oo iyaduna maalinnimadii shalay si weyn loogu soo dhaweeyay madaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa kadib markii halkaasi la sheegay in ay maamulka Somaliland cafis u fidiyeen dhammaan dhinacyadii ka qayb qaatay dagaalkii Goojacade ee lagu soo afjaray xukuumadii Muuse Biixi Cabdi ee dagaalka ku qaaday dadka reer Laascaanood. hadda waxaa muuqanaya in mar kale isu soo dhawaasho xoogan la dareemayo iyadoona xildhibaanad Fahimo Qooje oo kamid ahayd xildhibaanada markaasi maamulka waqooyi bari Soomaaliya ay dhawaan ka degtay magaalada Hargeysa. intaasi wixii ka dambeeyana reer Sool waxa ay qaateen go'aan ay dib uga fiirsanayaan kasimidahashada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. sidaan ogaanana waxaa durbaba socda in rag kale oo waaweyn oo ku jiro garaad jaamac garaad cali iyo xubno kale loo gacan haatinayo. Fahimo Qoojena waxa ay hordhac u ahayd wafdi ballaaran oo dhinaca Somaliland u gooso doona hayeeshee dadka reer Somaliland ayaa durbaba diidmo xoogan waxa ay kala hor yimideen damaca waalida ah ee xukuumadda Cabdiraxmaan Ciro ay ku soo dhaweynayso qaar kamida dadkii dhibaateeyay eheladooda isla markaana saameynta weyn ku lahaa dagaaladii lagu dilay malaayiinta iyo boqolaalka qof ee ka dhacay gobolka Sool iyadoona magaalada Burco ee gobolka Togdheer xaruntooda banaanbaxayaal isugu soo baxay ay sheegeen in Fahimo Qooje ay kamid tahay dadka ay eheladooda ku tumayaan. Somaliland ay si weyn u eedeeyeen waxayna gebi ahaanba meesha ka saareen in Fahimo Qooje iyo xubno kale oo ay eedo iyo tabashooyin xoogan u qabaan aysan Burco imaan karin Hargeysana ay uga daba tagi doonaan. dowladda Somaliland ay ka codsadeen in eheladoodii oo maxaabiis ah Laascaanood ay ku xiran yihiin la soo deyn sidoo kalena dhibaatooyin xoogan ay la kulmayaan. taa bedelkeedana isla qofkii xasuuqaasi ka dambeeyay lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa waxay ku tilmaameen inay tahay wax aanay weligood cafi doonin maamulka Cabdiraxmaan Cirana barmadu ku noqon doonto. horey hogaamiyihii hore ee maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa u diiday in la soo dhaweeyo Fahimo Qooje hayeeshee tallaabooyinkaasi oo dhan xukuumadda Cabdiraxmaan Ciro indhaha ay ka qarsatay reer Sool qudhooduna inkastoo ay ku kala qaybsan yihiin qadiyada Fahimo Qooje oo maalmahan si weyn hadalhayn weyn uga abuurtay baraha internetka. waxaa la aaminsan yahay in qaar kamida odayaashii dhaqanka iyo sidoo kale gabi ahaanba qaar kamida saldanadii guud iyo garaadyadii oo aan ogoleyn in maamulka waqooyi bari Soomaaliya la dhiso isla markaana khaatumadii hore aqoonsan iyaguna hadda hanjab ka joogaan kasimidahashada iyo sidoo kale inay la sii shaqeeyaan firdhiye. garaad jaamac garaad cali iyo xubno kale oo garaad jaamac garaad cali iyo sidoo kale dhammaan garaadada guud ee maamulkaasi intooda badan markii laba loo qaybiyo saddex kamida ma ogola waxayna ku fikir yihiin Fahimo Qooje iyadoona sidoo kale garaadkii weynaa ee galad dagaalka la aaminsan yahay inuusan hadda han weyn u haynin kasimidahashada maamulka waqooyi bari Soomaaliya wuxuuna sheegay in midmadii Soomaaliya ay la midoobeen ay ku ngubeen. si kastoo yaataba maamulka waqooyi bari Soomaaliya waxaa ka soo socda arrin musiibo ah haddii dowladda Soomaaliya aanay indhaha ku hayn waxaana laga yaabaa in dadka reer Sool ay dib ugu laabtaan maamulkii ay ka yimaadeen ee Somaliland.